nimankan waxay wadaan waa ila meerayso hadda inta soo wadeen يعني dhaqanka dawladnimada iyo waxa xataa inaan la dhowrin taliyaashii ciidamada la soo joojiyay xilbaan ma soo sheegay waaye war taliye ciidan oo adiga COVID-19 maxaa ka galay COVID-19 shabaab miya qarax muusitaa ma jidka buu qarxinay aaway dalkii iyo muxuu ahay tuulooyinkii iyo degmooyinkii goboladii dhulkii maxaan ku yiraahdaa cadawga ummadda Soomaaliyeed iyo cadawga dunida dhan u deganaa ee la rabay inaa wax ka qabatiin aaway kuwan maalin kasta guryaha ku duminayaan magaalada inta u soo galaan ay ku gablaminayaan aaway 4 sano la soo joogay ciidamada horumarina laga sameeyay inta laga dhacay xagga la yeeray amniga waa kari weyna 10 jeeran aan ku jaalay waxaan hal tuuro oo shabaab laga xoreeyay oo maalintii maxamed cabdullaahi uu iimaanay shabaab haystay oo laga xoreeyay ama markii ugu horreysay shabaab laga xoreeyay hal soo sheego hal tuulo degmo ma gobol ma dawlad goboleed ma ciidankii inuu xoogaysto qurxonaada maxaa lagu gartaa inay wiilasha Soomaaliyeed garaacaan oo ay dagaal sokeeye ka shaqeeyaan oo ay dhulka inta siixiyaan qoryaha buudadkooda ku baadkooda ku garaacaan miyaa horumarka ciidamada ma inaa maxaa ay lagu qaado diyaarada lagu daabulo ee dhulka carrada jirdeeda la geeyo ayagoo dhulka mari karin oo shabaab taaka dhulka u joogo inay tagaan dagaal sokeeye reer isdirsan iyo balaayadooda ay dhex cararaan miyaa horumarka ciidamada laga gaari waxaan leenahay nimankaas walaalaha waxaan u sheegaynaa dadka caqligoodii waa ku cayaarteen waana la idin fahmay waa la idin fahmay markaan ka bacdi caqliga dadka kuma cayaari kartaan waxaasi waa dulqaadayna ka ahayd ee dadka caqli darro kama ahayn ee dulqaad ay muujinayeen iyo samir iyo adkaysi iyo ama rajo dawladnimadii ay maanta muxuu ahay tallaabo qaadaay ka ahayd caqliga dadkaad ku cayaarteen curfiga dawladnimada iyo maxaan ku yiraahdaa nidaamka ku cayaarteen wanaagii Soomaaliya iyo socoshadii Soomaaliya ku cayaarteen ha u sii naqanina arrinta banaan baxa waa laga dhawaajiyay waa dastuuri dadkaan xaq u leeyahay haddaadan codkaaga ku dhihi karin kana waa diidanahay kana waa ogolahay maxaa ku dhahe qori iyo madfac maan soo qaadanaynaa dadkaani waa ka yimaadeen waa ka bislaadeen ma rabaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wiilasha yaryarka ee meesha la jooga ee dharka gashan dadka ha ku riixina dhinacay ka yimaadeen ha u celinina waa ka yimaadeen uma socdaan ma ogola annagaa la joogno ku dhex jirna ka tirsan aadi mayna meel xun ma rabno cunfi iyo colaad iyo dagaal iyo dhiig Soomaaliyeed si sabab u daata ma rabno jidkaasaan mareynaa xaq dastuuri ah waxaa la idinku leeyahay ammaankooda inaad sugtaan dadka soo baxay ilaalisaan cadowga la sheegaya ka ilaalisaan wixii tasiilaad u samaysaan jidadka maritaankooda u fududaysaan laakiin maanta inaa idaacadda usoo hor istaagtaan dadkan waxaynaynaa sida uu sheegay xildhibaanku waa dembi adiga ku gaar oo gelaysid meeluu dugsan yahayna ma leh dadku waa mas-uuliyiin waa waxgarad waa maxaan ku yidhahdaa indheer garad dhammaantood waa kuwa in yar ayagoo ah meesha isugu yimid oo salka u wada xiran yahay oo gacmaha muxuu ahaay wada marsaday muxuu ahaay sanitizerkii qof walba sanxirkiisu soo qaadanaya intii aan wadanina maalintaas meeshaa lagu siinayaa intii isu socdaan jidka iyo gacmo dhaqu waa yaallaa meesha iyo sanitizerska dadku waa imaanayaan ilaahay idinkiis maalinta jimcaha meesha waa la isugu imaana dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho deganna waa imaanayaan kuwa gobolada jira waa og yihiin waa la wada sugayaa maalintaas waa beriya ka dhiman waa tegeynaa haddii alla yidhaah waa tegeynaa ma baaqanayno ma hakanayno annagaa idinka horeyno meesha joogno ku horumarayno waa tegeynaa haddii alla yidhaah warkooda dheg jala qof siinaysa malaha run laguma baran dadka inay wanaag u fanaan laguma baran dadka inay ixtiraamaan laguma baran
dowladnimada inay dhowraan laguma baran warkoodana qof yeelaysa male la dhagaysan maayo la dhagaysan maayo ha xishoodaan sharciga ha dhowraan dadnimada iyo dhaqanka suuban ha ilaaliyaan dadka xuquuqdooda ha ilaaliyaano xuquuq damboo lagu tumanaa waa la diiday ma jirto waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliyeed hooyooyinka culamaa uddiinka bulshada rayidka dadkoo dhan oo magaalada muqdisho gobolka banaadir ku nool barxaddii daljirka daasoonaa noo ballana maalinta sideeliya dhammaantiin waxaan leenahay ka soko maalintaas ka hor qofna ilaahay ma dilo taariikhdaas samaysmaysa qof walba soo goobjoog uga ahaado oo u yidhaahdo maalintii daljirka waa tii aan joogay 19 bishii February waataan daljirka taagnaay qof walba inuu yidhaahdo rabaa oo taariikhda meel ka gala dee la yidhaahdo guuleysta waxaan noo ballana meeshaas howlihiinnii gaargaarka aad haysateen sidiina u haysta abaabulka sidiisa u wada maxaan ku idhahdaa hebelaa xagga ka hadlay iyo hebelowbaa inta ka hadlay iyo nimaan la garanaynaa meesha ka hadlay iyo warkooda kuma jiro wax qalad oon sameeyo hayna ma laha xuquuqdeenna iyo waajibkeenna iyo waxaan xaqa u lahayn aan ku taagannahay ka xishoomayno kana cabsamayno iska ilaaliya dacaayadaha raqiiska ay wadan fiiri dadkan maalin walba qof inuu yimaado oo dadka ku aamusiyo kelmad dadka lagu aamusina in la sameeyo waa dhaqankii dictatoriyadii kacaanka laga keenay waay kacaan diid iyo afmeeshaar iyo dib u socod iyo qaran dumis iyo maxaan walax jinnoon la garanayna dadka la dhihi jiray si aanay ra'yigooda u cabirin oo aanay u hadlin oo markay hadli tagaan loo yidhaahdo adiga kacaan diidaa tahay dib u socodaa tahay maxaan ku idhahdaa afmeeshaaraa tahay loo yidhahdo shib u yidhahdo qofka dhaqankii waa soo minguurina dagaaladii sokeeye markay socdeenna waa maanacobia iyo waa manifesto iyo waa sulux iyo waxaan kelmadda sulux xataa kelmad wanaagsaneed xataa si waxaa loo yeelay waa magac xumaa loo yeelay waa noo maalintaas haddii alla yidhaha waana wada joognaa annagaana idinkaga horreyna meesha haddii alla yidhaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh noolaada adinka